aabaheed Hitler ayaa loo yaqaanaa. Hitler qudheeda waa aqaanaa. nin laga baqa way xataa muuqaalkiisa ayaa laga baqaya. Dan idin sifeeyo marka hore waa nin dheer gar weyn leh hareedkii isku darsana ayuu leeyahay. tintiisa garbihiisa xaad oo tin loo maleeyo ayaa ku taasho. hadalkiisa waa cod weyn yahay. hindhiisa waa guduudan yihiin. mar allaala markaad hindhaha aad ku dhufato adoon hoos fiirinin ma ahaanaysid. yacni hindhaha kuma hayn kartid, waad ka baqaysaa. haybad ayaa ilaahay uu siiyey. Hitlerna waa loo bixiyey. Soomaalida waxay ku dheeraysaa mataqaanaa qofba magiciisa ayay magaranaysaa isha uga ridaa ama ay ku dhajisaa. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كسودة وهذا الشيخ ريمي channel. waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibad iyo dac kastoo aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar. Allah subxaanahu wa tacaala waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh, adduunyo meelsan leh, aakhiro janno leh inuu ina siiyo dhammaanteena. آمين آمين آمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل مرادي ومراد المسلمين. أحبتي في الله. ما أنت وحان إذن هاي فيديو يا شيدا متكا ugu daawashada badan isla markaasna midka ugu like badan inaan idin soo gudbiyo. idinma soo gudbin lahayn. dad badan ayaa iga soo codsaday, telefoonna ii soo direen, commentigan iigu soo qoreen iyagoo dhahaya inoogu soo celiya. laakiin dhig jalaq uma aanan siinin. fiidiyowgii ugu dambeeyey reactionka aan ka bixinay dhalinyaradii quraanka jajabinaysay, reactionka aan uga bixinayay fiidiyowgii ugu dambeeyey oo aan soo geliyo 2 casho ka hor ayaa commentiga la iigu soo qoray in aan ku soo celiyo fiidiyowgaas. commentiga waad ila arki kartaa waana kana. haddaba commentigan ayaa igu dhaliyey in aan fiidiyowgii aan ku soo celiyo insha Allah bidnillaahi alkariim. dadka igamaysan codsan lahayn haddii fiidiyow nuxur leh uusan ahayn igama codsan lahayn. laakiin waxaan ogaaday fiidiyow nuxur leh inuu yahay dad badanna anfacay insha Allah bidnillaahi alkariim. laakiin wax cusub ayaan ku soo dari doonaa. waxaan kaloon ku soo kordhin doonaa ducada maadaama af kale aan ka sheegay iyadoo qoraal ahna waan soo gelinayaa si ummad kale ama ummad badan ay uga faa'iideystaan. haddaba waxaan idinka codsanayaa walaalayaal maadaama aad iga codsateen dad badan ay iska rabeen niyadda ka rabeen oo laakiin ii sheeg adiga aan afka ka soo bandhigan jirin, haddii aan idinku soo celiyo fiidiyowgan like aad saaraysaan like kale ha ka duwanaato insha Allah. waxaan idinka codsanayaa calaa qofkii daawadaba inuu like-tiisa uu saaro bil ahsaanak adigoo mahadsan oo mudan. haddii qofkii daawada rag ahaw dumar ahaw dal joog dibad joog haddii aad daawato fiidiyowgan canshuurtiisa waa inaad like aad saartaa. fiidiyoyaasha kalenta kuguma qasbi jirin, haddana ma kugu qasbaayay, codsi un baan wataa. ciddii daawatow like saar insha Allah bidnillaahi alkariim. maxaa yeelay fiidiyowgan haddeertan aan ku soo celinayo waa fiidiyowga inta fiidiyow aan soo dhigay 400 iyo hehe fiidiyow ayaan soo geliyey. 400 iyo hehedaasi insha Allah fiidiyowga ugu daawashada badan waay, misna ugu like badan. adinkaba waad arki kartaan insha Allah bidnillaahi alkariim. la socod wanaagsan. fiidiyowgaas waxa weeyaan qisadii Hitler Soomaaliya, qisadii aan u la magac baxnay ayaan ku soo celinayaa insha Allah bidnillaahi alkariim. waxaan ku soo darayaa 12 bilood kadib dad isticmaalay misna ii soo sheegay ayaan idin sheegaya. waxaan ka soo qaadayaa wiil iyo gabar
ayaan ka soo qaadaya iyadana markii ducadan ay akhristeen u hergashay misna ama u shaqaysay insha Allah bidnillaahi alkariim videoga ayaan bilaabaya haddii aad ka heshaan like sidroobka inooga yeela mar horena idin sheegay subscribe noo dhaha insha Allah bidnillaahi alkariim oo nagu soo bira dhiirgelin bay noo tahay gambayalkana furta si ay idin soo gaaraan waxyaalaha kale ee aan soo wadno insha Allah walaalayaal haddaan qisadii aan bilaabo markaan videogan aan dhameeyo labadii qofood ee wiilkii gabadha idin sheegayay qisadooda ayaan idin soo sirdinaya ama aan idin sheegaya insha Allah bidnillaahi alkariim waxa ay ugu shaqaysay ducadii insha Allah walaalayaal waxaa jiri jiray wiil Soomaaliyeed garab rarata ah haddaan si kale u idhaahdo fuundi ayuu ahaa salaad subax kasto masaajidka ayuu imaan jiray fuundiyaasha wuxuu kaga dubanaa ahlu salaad ayuu ahaa war qof salaad subax jamaacada kugula tukanayo salaadaha kale maxaad moodaa laba salaadood baan markhaati ka ahay xilliyada kale waa uu maqan yahay salaada cisho oo gurigooda uu joogo iyo salaada subax oo gurigooda uu joogo Allahu akbar waa labadii dadka lagu qiimeyn jiray ama munaafiqiinta lagu ogaan jiray way labadaas ayaan markhaati uga ahay duhur iyo casar iyo maghrib meesha uu ka shaqeynayay meelaha kalente midha oo ayuu jiraa subaxyada ka mid ah ayaan muxaadaro u istaagay aniga waxaan ka sheekeynayay qisadii qabsatay wiilkii foornistaha ahaa iyo imaam Axmed ibn Hanbal qisadii qabsatay Axmed ibn Hanbal ayaa maalmaha ka mid ah iska safar ayuu iska galay safarkii hagala ma xume muxuu u baxay ma oga masaajid ayuu magaranaysaa ku tukaday maghrib isla masaajidkaas ayuu cisho ku tukaday markii masaajidka cisho la tukaday ka bacdi ummadda way dareereen waxaa la rabay in masaajidka la xiro mu'adinka ayaa u yimid wuxuu dhahay maxaad ahayd musaafiraan ahay masaajidka lama seexdaa la yiri masaajidkii waa laga ceyriyay meeshaan masaajidka laga ceyrinayo cilmigii dadka uu baray ayaa laga bartaa imaamkaas Axmed ibn Hanbal madhabkiisa ayaana meesha laga isticmaalaa hadduu dhihi lahaa al-imaam Axmed ibn Hanbal ayaan ahay madax dushiisa ayaa la saaran lahaa balse ma dhicin waa uu ka qariyay masaajidka marka laga soo ceyriyay masaajidkii la xiray darjinkiis ayuu iska fariistay nin foornista ah oo roodista ah yacni rootiila ah wajinkiisa qasanayo ayaa meesha biyo ku soo daadiyay yacni biyo caadi oo alaab uu ku yar raacsiiyey meel ku soo daadiyay biyaha faniinka ayaa gaaray foornadii iyo masaajidkana way isku dhagan yihiin war maxaad ahayd markaasuu wuxuu dhahay musaafiran ayaan ahaa maxaa meeshan ku fadhiisay masaajidka la iga soo xirtay soo gal dhahay foornada ayaan dhinac ka jiifinaya foornadii ayuu dhinac ka jiifiyey Axmed ibn Hanbal isagoo jiifa roodilihii wuxuu qooshayaa cajiinkiisa oo roodigu rabay inuu ku sameeyo aroortii markaasuu wuxuu ku qasayay astaghfirullahi alazim wa atuubu ilayhi astaghfirullahi alazim wa atuubu ilayhi ayuu ku qooshaayay Axmed ibn Hanbal waa jiifi waayey yacni ninkan mucjizada uu wato ayuu la yaabay wuu soo fariistay markaasuu wuxuu dhahay yaa hada istighfaarta sidaan la imaam garanaysaa aad u akhrisaa waay ha uu dhahay hawshayda oo dhan markaan wato istighfaarta ayaan ku wataa uu dhahay markaasuu wuxuu dhahay marka ilaa Axmed ibn Hanbal imaam dhan waaye caalim waaye wuxuu og yahay qofka istighfaar laazima in uusan marnaba khayr zeereynaynin markaasa waxa uu dhahay qofka istighfaarta laazima yacni khayr badan ayaa lagu og yahay maxay tahay uu dhahay ma sheegi kartaa waxyaaba aad la kulantay markaasuu wuxuu dhahay istighfaarta markaan laazimay uu dhahay ilaahay waa i qaboojiyey marka hore shaqo xalaal ah ayuu ii yeelay zawjad xalaal ahna wuu ii yeelay oo raaliye ah oo diinta ayada i barto awlaad baari ahna ilaahay waa i siiyo dhahay wax kale u baahanahay ma laha wax kasto aan ilaahay ka baryana waa uu ii sahlaa laakiin hal duco baan jeclahay inay ii dhiman tahay weli ilaahay uusan ii sahlin laakiin ayadana waxaan rajaynayaa inuu ilaahay oo ii sahli doono markaasaa waxa uu dhahay ducada maxay ahayd oo ilaahay adig kuu sahlin markaasaa wuxuu dhahay ilaahay waxaan weydiistay imaamka caalimka ee la yiraahdo Axmed ibn Hanbal inuu ilaahay oo i tuso ayaan ilaahay weydiistay Axmed ibn Hanbalki waa banaxaybo ku soo celiyo dhahay maxaa dhahday ilaahay waxaan weydiistay Axmed ibn Hanbal imaamka la yiraahdo ee madhabkiisa aan ku dhaqanno inuu ilaahay uu nolol ilo kulansiyo intuusan dhimanin amaba ani aan dhimanin markaasuu Axmed ibn Hanbal waa sii naxay markaasuu wuxuu dhahay abshir ya hada warniyaho bishaarayso ayuu dhahay
ilaahay baa isoo kaxeeyey wuxuu ii soo kaxeeyena ma garanaynin waxaan u soo baxayna ma garanaynin laakiin waxaan ogaaday in adiga dartaada laykaa soo kaxeeyey ayaan ogaaday waay axmed ibnu xambalka la sheego imaamka afaraad ee ugu dambeeyey waa aniga ayuu dhahay wadaadkii waa uu yaabay wiilkii roodhiilaha ahaa sujuudu shukri ayuu dhacay markaasuu imaamkii ayuu xabad ka saaray markaasuu ku ooyey allahu akbar istikfaarta walaalayaal faa'iidadaas ayay leedahay markaan aan ka sheekeeyey istikfaartaas fadliga ay leedahay iyo qisadan oo axmed ibnu xambal markaan ka sheekeeyey wiilka waa uu joogay marka allahu akbar isla markii waa uu ii yimid markaasuu wuxuu iiga sheekeeyey qisadan hadda aan idiin sheegayo wuxuu dhahay sheekhow gabar ayaan jeclaaday aad ayaan u jeclaaday hala jeclaada muxume dadka zamankan jiraan waad og tahay teleefon ayaa la kala qaadanaya video maqal iyo muuqaal ayaa la iska daawanaya ii sheegay sidii la rabaa la isku arkooya gabadhan teleefon ma haysato yay haysanin waa u gadi lahaa qaab ay u hadasho ma garanayso aabbaheed ayay ka baqdaa ii sheeg adiga aabbaheed Hitler ayaa loo yaqaanaa Hitler qudheeda waa aqaanaa nin laga baqa way xataa muuqaalkiisa ayaa laga baqaya dan idin sifeeyo marka hore waa nin dheer gar weyn leh hareedkii isku darsana ayuu leeyahay tintiisa garbihiisa xaad oo tin loo maleeyo ayaa ku taasho hadalkiisa waa cod weyn yahay hindhiisa waa guduudan yihiin mar allaala markaad hindhaha aad ku dhufato adoon hoos fiirinin ma ahaanaysid yacni hindhaha kuma hayn kartid waad ka baqaysaa haybad ayaa ilaahay uu siiyey Hitlerna waa loo bixiyey Soomaalida waxay ku dheeraysaa mataqaanaa qofba magiciisa ayay ma garanaysaa isha uga ridaa ama ay ku dhajisaa Hitler ayaa la yiraahdaa saddex gabdho ayaa gurigiisa joogto laba isaga uu dhalay iyo mid uu asaga abti u yahay gabdhahaas lama hadlo rag oo dhan way ka quusteen wiilka markuu saas dhahay anixta waa la yaabayay markaasuu wuxuu leeyahay waan jeclaaday gabdhahaas mid ka mid ah ayaan jeclahay waa mid ugu yar ii sheeg adiga kasta yar markii suuqa la soo aado marmar xataa aniga ma shaqaystii marka wuxuu dhahay markaan wax dhisaayo dhagax markaan saan u qaadayo oo shamiindada aan saan ugu dhufanayo iyada un baan ma garanaysaa aan ka fekeraa marmar xataa dadka waxa ay ku hadlayaan ma maqliyo dhahay ayadaas un baaba i hor joogto si aan ugu bandhigtana ma kasaay ayadana si ay ugu bandhigatana iyadana si ay ugu soo bandhigato ma laha waan kala baqaynaa markii oo wadada la maraayo aniga waa hor socdaa iyadan gadaasheeda ayay soo socotaa markaasan aan la hadlaa mararka qaarkood mas maqlayno haddaan xitaa aan garab socdo iyada igama ogolaanayso anigana ma barreebiba nafteyda ima siinayso dhahay inaan la socdo maxaa yeelay waxaan ka baqaya adoo la socotid armow Hitlerki uu ku arkaa meesha balaaya ka dhacdaa ayaan ka baqayaa uu dhahay horteeda ayaan soconayaa gadaasheeda ayay soo socotaa markaas ma fiican tahay wax kale leesma dhahayo ma lees balansanayo see tahay ma fiican tahay xaaladaada ii sheeg ani waa fiicanay alxamdulillah sidaas way intaas bas aa lees gaarsiiya anna waa hor socda idina gadaasheeda ayay soo socotaa arinka iyadoo saas ah gabadhii waa jeclaaday uma sheeg yacni aabihii intaan u tagay waa jeclahay ma dhihi kari gabadhiina arkaan raba ma arki kari xitaa in aan doonto akhyaar aan u diro waan kala baqayaa uu dhahay si aan yeelo ma laha maxaan sameeyaa markaasaan waxaan dhahay bismillah niyo yaababa leedahay istigfaart haddeertan aniga aan sheegay ma xasuusataa istigfaartaas laazimaan dhahay hal isbuuc halkaas isbuuc markaad wadda ka bacdi maalinteeda ii imow maalinkaas maalinkay ahayd ma aqaano maalinkeeda ii imow ayaan ku iri wax kale ayaan kuu dirayaa aniga waan iska ilaaway ilaa isaga qof dan leh waayo qof dan leh ma daala la yiri maaho isaga wuu xasuustaa wuu ii yimid marka hay sheekh bacsaad subax uu ii yimid hadana hay sheekh ka waran wadadii muddadii waa la gaaray markaas waxaan hadda soo gurigaaga ma aadaystaha adkaaru sabax wal masaa ma akhrin jirtay waxaan dhahay gurig marka laga baxayo sow kuma akhrisan jirin ama sow ma akhrisan jirin adkaartii lagu bix jiray bismillaahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah markaas waxaan dhahay intaadan irida ka bixin ducaas aadan akhrinin waxaan dhahay ducadana waxaan dhahay 3 jeer ayaad ku duceysanaysaa intaadan 3 jeer ku duceysanin magacan oo magacyada alle ka mid ah 99 ka alle ka mid ah
ayaad akhrinaysaa 199 jeer ayaad akhrinaysaa maxaad leedahay الجبار ayaad leedahay yaa jabbaar waa duco jabbaarow iga soo gaar waayo culays weynaa isaaranay 199 jeer dhahaan dhahay ku celceli yaa jabbaar markaad dhahda kabacdi 3 jeer ducadan aan kuu qoraayo akhriyaan dhahay oo ku celi kabacdi shaqadaad iskaga bax kabacdi waxaan dhahay ilaahay wax khayr qabo ayuu kula kulansiinayaa waayahay wuu dhahay ducadii ayaan u qoray وانا أخري وانا أديبي دعانا وحياة سدة اللهم باسمك الجبار الذي خضعت له الجبابرة لقوته وعظمته وجبروته تحسنت باسمك الجبار حسنا يليق بعظمة اسمك وقوة سطوتك وعظمة هيبتك 3 مرات ducadana waxaan dhahay 3 jeer ayaad ku celinaysaa markaas ka bacdi waa bixaysaa ducadii lagu baxay ayaad ku baxaysaa markaas ka bacdi waxaad la kulantidaan dhahay arag istighfaartan ha joojinayna dhahay waayahay oo dhahay sidii ayuu sameeyay waxaa dhacay walaalayaal wixii dhacay ayaa dhacay qisadii aad ogtihiin dadkiina qaarkiin ay yaqaanaan oo saas ay u soo dalbanayeen ayaa dhacay maxay hadaba qofkii aan aqoonin si aan ugu sheego waxa uu dhahay casar ayaa jameecada idhaafto dhahay masaajidkii ayaan tagay cimaamad yar ayaan watay waa duuduubay sutra ayaan ka dhigto dhahay markii salaadii aan xirtay dhinacayga midig ayaa la ii soo istaagay uu dhahay markaan 2 rakac aan dhameystay dhinacayga midig ayaa la soo istaagay markii la soo istaagay ileen waa la soo simaa mogtahay saan aal kala noqonaya mooho waa dareemaysaa qofka adii aad ka saysay waa dareemaysaa marka culays ayaa isoo fuliyo dhahay Hitlerkii waayo dhahay wax kale iskuma haysano wax kale iskuma qabsanin salaada kali ah aan ku jiro markaan dareemay inuu Hitler dhinacaygu soo istaagay cabsi ayaan bilaaway dhahay qarqar saadi anoo ku jiro qab qarqaraan bilaaway markaasaan waxaan dhahay niyo maxaa ka qaldan shaydaan muujida soo ku galoy caadi iska dhig 2 rakacadood dhameystay isagana 2 rakacadood kaleente ayuu la yimid intuu markaa uu 2 rakac uu tukanayay aniga horaan fariistay oo dhahay saana ugu soo jeestay wadnihii ayaa igaraactamooyo waxaan leeyahay maanta wadaadkan jaanis ayaad ku haysataa oksiyoon ayaad ku heshay maanta iyay ku dhaafin sheekadan wixii ka dhacay ha ka dhaco yacni shul ama shal ama wax xil ama waxa lagu diido waxba ay dhahayo wadaadkan la hadal anigana waxaan rabaa inaan la hadlo laakiin si cabsin waa dareemayaa waa Hitler ileene laguma degdegi karo Soomaa marka wuxuu dhahay markii salaada uu dhameystay waa u soo istaagay oo dhahay markuu assalaamu calaykum waraxmatullahi assalamu calaykum waraxmatullahi astaghfirullah 3 jeer uu dhahay 3 jeer uu dhahay waa soo ag fariisto dhahay waa salaamay wadnihii kula naqaska aan leeyahay oo dhahay assalaamu calaykum adeer waxaan rabay inaan kuu sheego markaas asagii abu wuxuu dhahaybo ani xitaa waxaan rabay inaan kuu sheego markaas wuxuu dhahay tayda ayaa ka weyn tayda ayaan kuu sheegayaa taada markaas ka bacdi ii sheeg oo dhahay ana waa ka aqbalay haye ayaan dhahay tolo muxuu kuu sheegi rabaa aan isleeyahay dhahay dhowr dhinac ayaan u fikiray dhahay gabadhii miyaa lagu arkay miyaa lagaaga shakii adoo la socdo maa lagu arkay mise maxaa jiro ayaan leeyahay dhahay mise digniin ayuu ku siin rabaa waxaasan ka fikirayo dhahay wuxuu dhahay saaxiibtu waa fiican tahay nin ahlu diina tahay oo shaqeysto ma sha Allah wuxuu dhahay waan ku jeclaaday dad ilaahay aan ku jeclaaday maal adduunyana kaama rabo wax maal adduunya la yiraahdaan kaama rabo gurigayga 3 gabdhood ayaa joogto gabdhahaygana ma baarin oo dhahay guumeys ma noqonin waa fahamtay Soomaa dhowr dad ayaa iga soo doontay laakiinse kama aan helin 3 gabdhood gurigayga joogto 2 anaa dhalay oo la igu daraa midna abti ayaan u ahay oo waa agoon anaa wakiil ka ah aniga ayaana weligeeda ah maanta wuxuu dhahay marka 3dan mid aad rabtid dooro waxaan rabaa inaan kuu guuriyo kushilina kaama rabo xitaa gurigaaga anaa kuu dhisaayo yani alaabta anaa kuu gadaayo wuxuu dhahay maadaama qof shaqeysta adiga aad tahay mid dooro marka aniga markuu saasi dhahay waxaan ka fikirooyaa oo dhahay ninkan waa kugu dayooyay barnaamijkaadu soo ogaaday
haddii aad fududaato isla markiiba taas aad dhahdo waa kugu fariisanahan leeyahay dhahay dharbaaxsho intuu yacni mid gedigedi ah uu ku dhufto waa kugu fariisanaa cid yacni magaranaysa kaa kicinaysana ma laha masaajidka ani asaga la joogo dhahay ilaah un baana saddexaynaya waana ka baqaay waana iga xoog wen yahay ila nin dheer waa xoog leeyahay moogtahay marka anoo saas ka fikiraya waxaan dhahay haddii haddaad dhahdid waxbaa kaa halaawaaye insha allah maasha allah wax fiicanaad samaysay ilaahay ha ku barakeeyo waa ka soo fikirayaa ayaan dhahay ow dhahay bas sidii yaa magaranaysaay lagu kala tagay markii wadaadka uu tagay uu hubsaday inuu dhaqaajiyey masaajidka dhexdiisaan ku rafto dhahay babababa sidii dameer maaragtay oo ii sheeg adiga ii sheeg rafanayo oo kale waan raftay oo dhahay keligayga mar waa qoslaa mar waa ooyaa mar ilaahan u mahadnaqaa saan waxaan yeela ayaan ka soo dhahay qisadii anuu uu ila wadaagay wixii uu sheegay waa mahadsan tahay uu dhahay gacanta ayuuna iga dhonkaday wiilkii gabadhii waa loogu daray wiilka ugu horeeya ay dhaleen aniga ayaa la igu sameeyey cabdulqaadir ayaa loo bixiyey haddeertaanna waa isqabaan walaalayaal fiidiyogana aad buu iigu dheeraaday 20 daqiiqo ayuuna sii dhaafay insha allah wiilkii iyo gabadhii fiidiyo kale ayaan ka dhigan doonaa intaasaan kusoo gabagabaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh